السلام عليكم kulanti wanaagsan kusoo dhawow barashada asaaska Photoshopka kooraskan waxaan ugu talagalay oo u sameeyay dadka doonaya inay fahmaan waxna ka ogaadaan asaaska Photoshopka iyo qaabka loo isticmaalo intaan ku guda jirno kooraskeena waxaan isticmaali doonaa Adobe CS6 version-ka waxaan ka isticmaali doonaa Workspace-ka Essential-ka oo dabcan default-iga Photoshop ku timaado marka hore marka haddii aad isticmaalaysid version kan aan isticmaalayahay ka horeeyay ama ka dameeyay maadaama aan isticmaalayno Workspace-ka Essential-ka oo default-iga ay dhammaan ka sameeyeen dabcan casharada waa la socon kartaa oo wixii dhammaan halka ku jira halka aad ka heli kartaa oo si caadi ah baad casharada ula socon kartaa oo u socon kartaa practice-kii waxa loo baahnay kooraskan waxa ka koobnaan doontaa 24 muuqaal 24 muuqaal waxaan ku qaada dhigi doonaa dhammaan asaas ahaan Photoshopka qaabka loo isticmaalo iyo qaabka uu shaqeyso waxaan samayn doonaa oo abuuri doonaa naqshado aan ka soo bilaabi doono meesha u hooseysa ilaa aan ka gaari doono meesha u dameysa oo aan ka save gareynayno oo ka export gareyn doono koorska waxaan kala qaadi doonaa saddex qaybood waxa kala yihiin introduction qayb hordhac essential practice qayb oo noqon doonta qaybta u ballaaran iyo qaybta u dameysa oo noqon doonta create design in aan nagu design abuurno marka qaybta horeysa waxaan ku arki doonaa introduction-ka waxaan ku eegi doonaa dhammaan asaas ahaan wuxuu u baahan yahay qofka baranaya Photoshopka inuu fahmo qaybta essential practice-kana waxaan ku eegi doonaa oo si fiican ugu qaada dhigi doonaa wax loo yaqaan Photoshop tools-ka iyo dhammaan effect-yada Photoshopka qaabka loo isticmaalo oo qofkii u adeegsan lahaa isla markaana si uu soo saaro wax qurux badan oo isagoo uu ku qanacsan yahay qaybta u dameysa waxaan ku eegi doonaa wixii aan ku soo baranay labada qaybood ee hore qaybtii introduction-ka iyo qaybta essential practice-ka inaan ku shaqeyno noo isticmaalno toolskii iyo effect-yada Photoshopka inaan samayno oo design gareyno saddex design oo kala duwan oo marka kadib aan u save gareyno inaan digital ahaan u isticmaali karno iyo inaan u isticmaali karno as printing oo caadi u printerayno saddexda qaybood bay ka koobnaan doontaa dhammaan kooraskeenu dhammaantood waxaan ku eegi doonaa asaas ahaan Photoshopka oo base bay noqon doontaa marka qofkii ku cusbaa iyo kii hore Photoshopka fikir u haystay oo isticmaali jiray dabcan labaduba ay la socon karaan oo si caadi ula jaan qaadi karaan koorasku marka ay noo dhamaato qaybta u dameysa waxaan samayn doonaa saddex design oo kala inaan samayno hal poster hal ID card iyo hal logo sida halka kaaga muuqata hadda si fiican u fiirsi dabcan muuqaalka halka aan ku dhex jirnaa hadda waxa weeye Photoshopkii oo halka aad ka aragtid posterkii oo dhameystiran oo ka kooban maxaan ku raadayay inta logadaas inagu sameynay iyo qoraaladaas wax yar halka saaran oo qaabka u design gareysan waxaan aaminsanahay haddii si fiican ula socotay isla markaana practice samaysid inaad wax badan base adag ka heli doontid qaabka loo isticmaalo Photoshopka isla markaana aad noqon doonto qof professional ku ah muuqaalkeena koowaad waxaan ku eegi doonaa wejiga hore ee Photoshopka qaabka ay u shaqeyso iyo faa'iidooyinka ay noo leedahay waanooyin kala duwan waxay sare